noocyada ay suit-ku u kala baxaan iyo xilliyada aad kala xidhan kartid. Mootino oo ka hadlaya style-ka soo dhawaada. Waxaa jira suudad badan oo aad iska dooran karto, laakiin suit kasta ma aha mid goob kasta ku habboon. Ka u horeeya waa single breast suit. Suit-kani waa kan ugu caansan. waxaan laga xidhaa munaasabadaha rasmiga ah ama officialka ah iyo soo kale kuwa semi formalka ah. labadaba wada xidhan kartaa. Suit-kan single breast suit-ku waxa uu si caadi ugu soo baxaa xafladaha, wuxuu kala shaqada, sidoo kale shirarka ganacsiga. Intaaba waa ku soo baxaya haddii suit-ka halka bagin aad xidhato midabku doona ha lahaado. inkasta oo xitaa midabadu ay bixinayaan sawir gooni ah. Midkani waliba single breast suit-ku waa versatile waana ka ugu habboon ee aad ku bilaabi karto collection-ka armaajada ama kabarkaaga markaad dhisayso. Hal suit oo single breast suit aad soo iibsato wax badan ayay ka kaafinaysaa. Suit-ka labaad waxaa loo yaqaanaa double breast suit. waa suit-ka laba badhilaha ah. Suit-kan waa suit-ka authority-ga iyo soo kale presence-ka awoodiisa soo muujinaya. shirarka muhiimka ah, xafladaha isku jirka ah, suit-kan aad ayaa ugu soo baxaya. haddii meherada ay tahay oo kale isla dhankiisa waa uu ka soo galaya. laakiin meherada suudad gooni ah ayaa loo xidhaa haddii aad caruus tahay. soo la soco weli maynaan gaadhin bartaas. linen suit. suit-kan xilli gooni ah baa la xidhaa. waa xilliga xagaaga ama samarka. haddii aad tegayso aroos ka dhacaya ama xaflad ka dhacaysa dhanka xeebaha ama soo kale picnic aad sameynayso oo dhanka xeebaha. suit-kani aad baa kugu habboon yahay waayo thread-ka tunda uu ka samaysan yahay fabric-ka aad buu khafiif u yahay. waxaanu ku ogolaanayaa inuu labiskaagu noqdo mid top ah. ka afraad ee aan soo qaadanayna waa cotton suit. suit-kan dunta uu ka samaysan yahay way ka duwan tahay dunihii kale ee aan soo sheegay. suit-kani waxa ka soo horjeedaa suit kala dhaho wool suit-ka oo aan hore u soo sheegnay muuqaaladii horeeyay ee aan ku sharaxnay noocyada uu suit-ku kala baxo. suit-kani waxa ku fiican yahay maalmaha fasaxa oo kale casual Fridays oo kale inaad iska xidhan kartid. iyo soo kale xafladaha yaryar ee iska normalka ee iska caadiga ah, events-ka yar iska normalka maxaa laga public gathering-ka ama private gathering-ka oo maxaa la aan official-ka kuwa waa samayn kartaa oo waad xidhan kartaa. suit-kani waxa uu leeyahay thread fabric khafiif ah taasoo ku saamaxaysa in xilliyada xitaa kuleylka aad dareemi karto inuu yahay qabow. ugu dambeynta velvet suit. velvet suit waa dooq kale oo suit ah oo aad iibsan kartid. suit-kani waxa uu muhiim u yahay ka qaybgalka events-ka habeenkii iyo soo kale xafladaha waaweyn ee madaxyaweyntu ay iskugu imaanayso. waxaa tahay events-kan gala events-ka oo kale badanka waa xidhaan dadka ka soo qayb galaya. waxa uu leeyahay vibe luxury ah suit-kan velvet-ku. soo kale dadka waad ka dhex muuqanaysaa marka aad xidhan tahay. suit-kan waa xilliyada goonida ah ee ku muhiimka mid aad xidhan karto. soo dooro. haddii dhanka labiska ay dhib ka haysatay annaka ayaa ku diyaarinay suit-ka kugu habboon, dharka kugu habboon. kaliya ta booqo website-kayga. haddii aad madax tahay dooro qaybta leadership presence-ka. waxaan ku diyaarinay 30 cisho oo labis ah, 7 cisho oo labis ah, 1 maalin oo labis ah. packages-ka dhammaystiran oo aanad ka warwareyn oo si fudud aan kugu qabanayno. bal adiguna la wadaag. suit-ka aad haysato magaciisa ma taqaanaa ama suit-ka aad ugu jeceshahay magaciisa ma taqaanaa.